السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكال يلعب وحال كان أن سلام يبقادين أن أقدريه يهبلين إنتبه. أرديدي لمان كقلين شبسي جامعة هذا ميل كستو أي شوغان كواسو كلا برتي تخصصات يكلي ذا كلودة دوان مقال كان السجع يدور مقال أو كتب بيدون بيد الله تعالى وحان كوبري دونا كاغانا ورمي دونا وحيالا بدن جامعة أن لقبرن وحان كوبري دونا وحيالا بدن أو خسية شقويك يهبك كلدوان اللو وقعد صدق شقويك فيديو كان سجع يدور فيديو أو كتب بيجيب وحن رجيني إن دوح بدن أتكرر سنتونتو سفيعان ولا صعو ميت كلينا يعني كل عارفين أنت بدن واحد لقوا مهمها مركي أرديدو أي قلن شبيان واحد لقوا مهمها إن أردك هرنا وحوجا تشيس بي كرديجن تهاي أو كله إن أرديد اللقوا ده هذا مالين تقلن شبين تودا أما مالمها كوي جبه قلن شبيسي ما حد قبل تاسولو شو ده يعني كوي كهريو وحيقبتان ما يعني أذكر ما حد قبل دون تسوق من دون تا هذا إصلاح الحلقة دنيا ده فيديو كان هذا أداوني سيد مقعة عن كل شيء أيام لين هذا قلن شبيسي ما حد قبل دون تا waxaan kaaga warrami doonaa tiraba 5 shay oo muhiim ah oo aad qaban kartid imika mar haddii aad jaamacadii aad ka qalin jabisay haduu Ilaahay yiraahdo arinka koobaad waxa uu noqonayaa waxa loo yaqaano gap year ama waa sanad nasasho inta badan waxaad ku soo jirtay waqti aad u dheer waxaad soo waday 8 sano oo dugsiga hoose ah waxaad soo waday 4 sano oo dugsiga sare ah waxaad soo waday 4 sano oo jaamacad ah intaasi haddii ay ku dhamaadeen waa 16 sano wax ku dhow haddii aan kaba badnayn waxa malaa ay tahay waqtigan hadda la joogo inaad iska qaadato waxa loo yaqaan gap year wa sanad nasasho sanadkaas sanad qasaare maaha wa sanad aad waxa way dib aad ugu noqonaysid noloshaadii wa sanad aad dib isu xisaabtamaysid wa sanad suuqi shaqooyinka aad ku baranaysid wa sanad maxayba haddii aad doonayso jaamacada kale inaad gasho ay tahay inaad barto aad ka fikri doontid marka wa sanad hawlo badan aad ku qorsheyn kartid adigoo hadana waxba aan baranayn marka arrinkaasi wuxuu noqon karaa waxaad qaban kartid haddii aad hadda aad qalin jabisay arrinka labaad ee aad qaban kartaa haddii aad qalin jabisay waxa uu yahay inaad waxbarashadaadii aad iska sii wadato inta badan ardaydu markay qalin jabiyaan waxa in badan ay ku fikiraan inay waxbarashadii aanay ka hadhina ay sii wadaan taasna waxa keenaya sabab badan sababaha waxa kamid ah in ardaydii dugsiyada waxa weeye kala duwan ee jaamacadaha kulliyadaha kala duwan baa jeeday ka qalin jabiyay inta badan fursadaha shaqooyinka way isku cidhiriyaan markasto shahaado sare aad sidatid waa inta badan mar walba ma dhacdo markasto shahaado sare aad sidatid oo aad ka sareysid qeyrka inaad shaqo fiican aad hesho waad uga dhowdahay kii shahaadada aan haysan sidaa ogeed ardaydu waxay ku dadaalaan inay diyaariyaan waxa weeye master haddii ay doonaan inay kaba sii badiyaan haddii ay doonaan inay post graduate ay diyaariyaan intaba waa option ardayda qaar ay sameeyaan marka optionka labaad wuxuu noqon karaa in aad waxa weeye aad waxbarashadaadii aad iska sii wadatid oo waxa weeye kororsatid shahaado kale oo cusub tii horena ka sarreysa shaqooyinkana ku dhaweyn karta inaad ku guuleysatana waa wax dhici kara shaqo fiican arrinka saddexaad wuxuu noqonayaa mar haddii aad jaamacadii aad dhamaysay welina aanad shaqo aanad ku beerin in aad gasho wax loo yaqaan internship haddaan macnihiisa si yar oo fudud aan kugu sheego waxa weeye in aad u shaqo tagtid waxa weeye goob shaqo shirkad company weyn ama company yar intuu doono wuxuu doonaha noqdo hase ahaatee adigoo aan waxba ku qaadan maysid lacag xoogaagii aqoontaadii xeeladaadii xirfadaadii waxaad ku bixinaysaa si bilaash ah oo maxaa ka faa'iideeyaa marka waxaad ka faa'iideysaa horta khibrad baad ka faa'iideysaa khibrad hadhow marka ay shaqo noqoto waxa weeye ku saacida in qof khibrad leh baa tahay ma tihid qofkii imka toos jaamacad uga soo baxay ee imka shaqo galay ma tihid qof shaqo soo qabtay ayaa tahay marka khibrad waad ka heli kartaa xoogaa kugu filan isla sidoo kale waxaad helaysaa asxaab iyo shabakad iyo network iyo dad waxa isku xidhan oo hadhow xataa fursad kale haday meel kale ka soo baxdo ku sheegi karo kula socodsiin kara waad helaysaa bimacna jaamacad hadda wad ka timan suuqi shaqada ayaad ku soo biirtay arday imka ma tihid shaqaale ayaad diyaar garoobaysaa inaad noqoto arrinka la saddexaad ba marka qaar laga faa'iidayo goobtan hadda aad ka shaqeynaysid baa fursad ka soo boodi karta marka shirkaduhu iyo goobaha waxa ay shaqooyinka ay kala duwan waxay xiiseeyaan qofka ku soo dhex jiray ee iyaga kamidka ah ee sidii waxay u socdeen fahansan ay inta badan qaataan markaad internship aad ku shaqeynaysid waxa weeye si bilaash ah xoogaagii aad shirkad aad ugu shaqeynaysid inta badan waxa dhacda in qolooyinka aad u shaqeynaysid ay ku qaataan waqtigu intuu doonaba ha noqdee inahaas waxaan oran karnaa waa faa'iidooyinka laga helo internshipka waa haddii aad hesho fursad waxa weeye goob shaqo
oo xoogaagii iyo xirfadaadii iyo xeeladaadii baad gelin kartid adigoo aan wax lacag ah kaga qaadanayn qodobka afraad aan kaaga waran qodobka afraad oo qodob inta badan dadku aanay samayn laakiin fiican inaad samaysid qodobkaas waxa weeye waxa loo yaqaan isxilqaannimada inaad isxilqaanto ama si kale aan u dhigo waa iska wax u qabso ama si kale aan u dhigo waa in volunteer aad samaysid tatawuc inaad samaysid in xoogaagii si hor ilaahay ah aad u bixisid adoo bulshadaadii ku celinay marka meesha aad volunteering ka galaysaa halkay doontaba ha noqotee laakiin bal xoogaagii inaad isku daydo in aad bixiso aqoontaadii inaad bixiso oo aad cid kale aad siiso adigoo arrintaa ilaahay ugu dhawaanaya bulshadaadana wax ugu taraya marka taana volunteering baa leedahay volunteering wax kale lagama faa'iido waxaad ka faa'iidaysaa horta kow CV-gaaga waa ku qurxinaysaa oo qof bila arrinaba tihido qof meel soo maray baa tahay isla sidoo kale waxaad ka faa'iidaysaa asxaab badan baad tii hore kale aad waxa weeye aad ku baranaysaa intaas oo dhan aad khibrad ayaa ku dheer oo qof shaqo soo arkay ayaa tahay goobtii waxbarashada waad ka timid imka goobtii shaqooyinka ayaa ku jirta marka hadda qof ay wax badan u baxsan yihiin ayaa tahay marka intaasina waa qodobkii afraad oo waxa weeye inaad xoogaaga aad waxa weeye la baxdid adigoo ummadaada dadkaaga wax ugu qabanayo waxa xusid mudan intaan videogan isaga aan ka bixin haddii aad muuqaalkan si fiican uga faa'iidaysatid jeceshayna in aqoonta waxa weeye shaqo raadinta inaad xoogaa xirfad aad u yeelatid si aad qeyrkaada u noqotid qof dhaafa waxa muhiim ah inaan ku ogeysiiyo waxa jira course aad iyo aad u qiimo badan oo waxa fara badan taabanaya ayaan ka diyaariyay arrintan iyada waxaan u bixiyay course-ka isaga shaqo doon inuuna haddii aad u baahan tahay warbixinta course-ka isaga ah iyo muddada uu socon doono iyo waxyaalaha lagu baran doono comment-ka ugu horeeya ayaad ka heli doontaa warbixintiisa oo dhammaystiran ee ha moogaanin inaad ku soo biirtana waan rajaynaya insha Allah qodobka shanaad ee ugu dambeeya waxa uu noqon karaa haddii aad maanta aad qalin jabisay waana halkay ardaydu ay dhammaantood xoog wada saaraan markay qalin jabiyaan waa sidii ay shaqo heli lahaayeen marka shaqadu waxay noqon kartaa laba waxay noqon kartaa shaqo rasmi oo buuxda full time job ah oo aad ku shaqaysanaysid ama wasaarad u shaqo tag ama hay'ad u shaqo tag ama shirkad iyo company u shaqo tag ama meel kale u shaqo tag meeshay doontaan noqotay inaad shaqaale ramaystiran noqotid waa mid waxay noqon kartaa shaqo waxa weeye half time job ah waa shaqo aan dhamaystirnayn inaad iyada lafteeda aad raadsataa iyada lafteeda waa fursad kale marka haddii shaqadaadii aad heli weynayd aad doonaysay in shaqooyin kale ku meel gaar ah oo pocket money-gaaga iyo saacaha aad kala soo baxdaa iyada lafteedu waa muhiim fiidiyoyada kuwan ka dambeeyay ayaan insha Allah taala in si fiican oo qoto dheer aan uga warrami doona talooyin wax badan ka saacidi doona in aad shaqo fiican heshid oo aad ku shaqo tagtid naftaadana aad wax ku tartid dadkaagiina aad wax ku tartid waxa rajaynayaa qodobadaasi wax weyn ay ku tareen haddii inuun aad wax ka faa'iiday ha ilaabin inaad asxaabtaada la wadaagto ardaydii aad isku asxaabta haydeen inaad xagga hoose aad uga yeedho si ay uga faa'iidaystaan intuba waa muhiim video isaga ahna wax badan bay u taraysaa dad badanna waa u gaaraya assalaamu calaykum